Shabeelle waxaad inooga barateen warbixino ka duwan wacyiga markaasi jira. Maanta waxaan idin haynaa sheeko aad u xiiso badan. Adigan i daawanaya rootiga marka uu maalmo yaalo ama baaro ama bariyo sida Soomaalida ay u taqaanba. Dabcan waa turtaa oo qashinka ayaad ku dartaa. Balse maanta waxaan ku suganahay goob uu qaali ka yahay rootiga bariyay maalmo yaalay. dabcan wuu ka qaalisan yahay rootiga cusub hadda la soo dubay. sababtu maxay tahay sheekadan ayaad ku dhamaysan doontaan. maalmo kadib ayaa la jarjarayaa rootigan waana la qoraxayn doonaa si looga sameeyo jiliga kore ee digaaga gaduudiya iyo wixii la mid ah. Panaseko waxaa loo yaqaanaa rootigan haraadiga ah ee markii la qalajiyo maalmo kadib la marsiyo makiinad shiida si looga sameeyo waxa macaaneeya doorada hilibkeeda iyo hilibka loo yaqaan buskeetiga. hilibka mid buraa lagu sameeyaa busteeki allaamahano kutuleeti waa kan burku lagu daray kanne busteeki allaha hilibka markii la bukeeyo asna sida budadii camal waa saana loo marnaa waa lagu dubaa guduudna wuu ka dhigaa qajajax ka siina. hadda qaarkiin waxaad xasuusan doontaan maqaarka ku dahaaran doorada la dubo oo qayb kamid ah ayaa rootigan bariidada ah laga sameeyaa kadib markii uu maro marxaladooyin kala duwan. wax way rootiga wixii haro marka hore waa la daadinay hadda daadis mala hatta dadka kale rootiga ka soo haro ana lay keena iyo macnihi ma fahmayaan. maama Maryan Xaaji oo loo garan og yahay Sukarey waxay iibisaa rootiga nuucyadiisa kala duwan. kolkii hore marka uu rootigu ku haro waxa ay ku dari jirtay qashinka balse gadaal dambe oo ay ka fikirtay ayaa u soo baxday in haraadiga rootiga ay ka sameyn karto wax soo saar cusub. tani ayaana u noqotay faa'iido dheeri ah oo hadda waxa u qiimo badan midka bariyay ee maalmaha yaalay. aniga rootiga marka hore waxaan ku bilaabay 10 xabo awuukee haddana waxaan ku darsaday maxaa baano hayb maalintii waxaan gadaa awuukee galabtii waxaan gadaa baano olio warwareega mid 2 kun mid 3 kun yani aan gadaa subaxina awuukee waayo rootiga awuukee waqtigii dagaalada loo bixi rootigan awuukee waayo galabtiina waxaan gadaa rootigan warshada iyo rootigan baano oliyaha iyo warwareega haweenkii aan gaday ukuntii waxyaalaha aad waqtigii hore wax badan rootiga waa ku qasaari jiray. aniga waa ogaa waqtigii anaga aan reer dhaqayn rootiga waxaan saareen darbiga korkiis markis qalalo mooyan ku tumeeni halaho hilbu yar leen ku sameeyay jirna maahno. hadda markii dambe wax badan waxa ku sameeysaa soo dhahay markii dambe waxaan arkay oo in la qaadanayo kan hadda anaga sameeynayno kan dibadda laga keenay asooshiyada dibaddan waa laga keenaa kan dibadda laga keenay tan kan dalka anaga sameeynayno kana ka fiicana ka macaan yani wax way rootiga wixii haro marka hore waa la daadinay hadda daadis mala hatta dadka kale rootiga ka soo haro ana lay keena iyo macnihi ma fahmayaan. aniga waagsaana googooyna markaan googooy ka bacdi qoraxdaan dhigaa waa qalajina markuu qalalo makiinadan geeyna waa shiida markaan shiida ka bacdi jawaanaan ku wada shubaa kadib waxaan geynaa farshada way iga cabirnayaan waxa leeyahay cabiraan $1 jamli ugu qaadanayaan igana $2 ay gadaan rubuuci $1 nus kiiladii $2 nus kiilo $1. dadaal badan iyo juhdi dheer oo ay bixisay hooyo Maryan ayay ku timid in maanta ay noqoto isha kaliya ee ganacsatada iyo bulshada ku nool caasimada ay ka dalbadaan Panaseko oo ah macaaneeyaha doorada iyo hilibka buskeetiga. sameynaa hilibka mid buraa lagu sameeyaa busteeki allaamahano kutuleeti waa kan burku lagu daray kanne busteeki allaha hilibka markii la bukeeyo asna sida budadii camal waa saana loo marnaa waa lagu dubaa guduudna wuu ka dhigaa qajajax ka siina. doorada oo lagu dhaho gadgadoontooda oo guduud wax ka dhigooyo waa asaga waayo doorada markii la dhaqo la dubaayo koraa laga marinaa wuuna guduudinaa qajajax wax ka siinayna aswaay nafahmino hatta iskorsaarkan dhahaano malmalaatada wixii la isku maray waa lagu firdhina suugada waa lagu darsanaa waa adkay maqaayooyinku waaweyn suugadana waa lagu dhaxdaraa way adkeene hadda waa leegu bart baawriyaal ay imaanayaan kuwii warshadaha waxay soo diraan telefoon hay maamo Panaseko haysa ha anigu iska diyaariya waa dhigaa
markii laga soo dalbadana waa soo shiida u geena waa macquul in dad badan oo idin kamid ahay inay la yaab ku noqon doonto in rootigii baryay ama maalmo badan yaalay in laga sameeyo wax soo saar cusub oo marka la isticmaalayo ah wax aad u macaan waxa uuna shaqo abuur u noqday hooyadan iyo ganacsato badan oo iyada ku xiran. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.